waxa uu ahaa nin iska shaqaysta oo dukaan yar meel ku haysta. Ninkaas waxa uu cuntada ka cuni jiray oo macaamiil u ahaa meel yar oo dadka danyarta ah cuntada ka cunaan. ninkii dukaanka yar haystay ayaa Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu u barakeeyey dukaankiisa yaraa, waxa uuna noqday nin hantiile ah, waxa uuna ka mid noqday taajiriinta ugu waaweyn magaaladaas. ninkaas gurigiisa wuu bedelay, wax kasta oo noloshiisa ku salaysneedna wuu bedelay, marka laga reebo hareerkii uu cuntada ka cuni jiray. ninkaas waxa uu lacag siiyey ninkii hareerka lahaa, waxa uuna ku yidhi, hareerka weynee, wax faa'iido ahna ma kaa rabo. ninkii hareerka waxa uu ku yidhi, mar haddii aad noqotay hantiile, weliba hantiile dadka oo dhan yaqaanaan, maxaa kalifay inaad hareerkaygan yar mar kasta wax ka cunto? waxa uu ku yidhi, hareerkan anigoo aan lacag haysan ayaan wax ka cuni jiray. waa igu ceeb iyo foolxumo maanta markaan hanti yeeshay inaan ka kibro. nolosha si kasta ood magac iyo maal u yeelato, ha iloobin dadkii aad isku darajada ahaydeen markaad maal la'aanta ahayd.